السلام عليكم halkan waa xubinta wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka qodobada daawan doontaana waxaa kamid ah dawladda waji kale u yeeshay siyaasadda mucaaradka muxuu yahay qorshaha kulanka farmaajo ee xiraaliyaha Qatar Soomaaliland oo garab weyn siisa Shariif iyo Xasan Sheekh xal laga gaaray xiisadii boosaaso ka taagneed iyo Puntland Soomaaliya oo ka hadasha xiraadda hubka UN-ka ay kordhisay iyo raashka oo sababeeyay inuu ka aamusay qaraarkan lidiga ku ah dawladda Soomaaliya deegaanadii ugu dambeeyay Al-Sunno laga wareegay qorshaha xiga iyo madaxweyne xanuun la soo dirso oo la carray isbitaal qodobadaasi qodobo kale ayaa daawan doontaan xubinta wararka haddii aad ku cusub tahay fadlan subscribe saar ku dhufo gambalelka si aad u noqoto daawadaha kuwaad markaynu wararkeena baahino aynu ku bilaabnay fila Soomaaliya ayaa dabcisay siyaasadeeda ku wajahan mucaaradka madaxtooyada ayaa u yaraan hal taako hoos kaga soo degtay luuqada adag ay ku wajahayso mucaaradka kadib markii cirku ku sii shareeray cadaadiska ka dhanka dawladda Soomaaliya taliyaha sirdoonka Soomaaliya Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo saameyn ku leh dawladda madaxweyne Farmaajo ayaa bilooyinkii la soo dhaafay waxa uu waday kulamo lagu qaboojinayo xiisada kacsan Fahad kaliya lama uusan kulmin siyaasiyiinta waxa uu dhawaan la fariistay wariyaasha madaxa bannaan oo ka dalbaday inaysan tibin wararka xubnaha ka aragtida duwan xukuumadda federaalka kooxaha u dooda xuquuqda saxafiyiinta ayaa codsigaas ku qeexay caburan in ku xadgudub ka dhanaa xorriyadda hadalka shir kale oo la qaatay xubno kamid ah xisbiga Xasan Sheekh Maxamuud ee midowga nabad iyo horumarka ayaa jira kaas oo loogu xaajooday taageerada qorshaha xukuumadda ee Galmudug kulankii ugu dambeeyay Sheekh Sheekh Axmed ayuu la qaatay is-aragan oo ka qabsoomay hoyga madaxweynihii toddobaad ee Soomaaliya ee Muqdisho waxaa ka horeeyay wadahadal taleefanka ah sida ay qortay warbaahinta Shariif ayaa iska diiday codsi kaga yimid Farmaajo kaas oo ah in wadahadalo ay yeeshaan muddadii uu socday shirka ayaa waxaa lagu lafaguray dhacdooyinkii u dambeeyay ee mucaaradku kala kulmay dawladda qaabkii loo xalin lahaa iyo tabashadooda ma jiro go'aan ay isla qaateen dhacdooyinkan waxaa ugu waaweynaa soo istaagay safaradii beledweyne Kismaayo si la mid ah dacwadii laga gudbiyay dawladda ee maxkamadda sare ee ka bilaabanayso dhageysigeeda ilo wareedyo labada dhinac ee ka agdhawaa ayaa ku sifeeyay kulanka xiisad dejin mustaqbalka inay dhacaan kulamo kale waa suurtagal ayay raaciyeen xubnaha labada daraf xiriir kale leh oo nala hadlay Sheekh Shariif ayaa haatan ah hogaamiyaha xisbiga Himilo Qaran oo dawladda uu ku dacweeyay soo istaagii safarkooda Kismaayo iyo gudoomiyaha madasha xisbiyada qaran oo ay ku mideeyeen 6 xisbi oo mucaarad ah wadaxaajoodka Fahad iyo Shariif ayaa ku soo hagaagaya ka gadaal markii Shariif uu ku goodiyay in haddii aysan dawladda joojin dulmiga ay ka saarayaan Muqdisho hadaladan ayuu yiri kadib safarkoodii la carqaladeeyay beledweyne kaasoo ay gargaar ku gaarsiinayaan shacabka fataado ay saameeyeen dabacsanaanta xukuumadda ee ku aadan siyaasadeeda mucaaradka ayaa imaanaysa xilli shaki uu ka jiro qabsoomidda doorashada 2021 taasoo xisbiyada iyo maamulada ay dalbanayaan in la cadeeyo kulankii ugu dambeeyay ayaa ku soo aaday xilli lagu waramayo inuu socdo abaabulka banaanbaxyo waaweyn iyo qorshayaal ka dhanaa dawladda doorashada ayaa la filayaa inay noqoto qof iyo cod hase yeeshee fashil ku yimid qorshayaashii lagu gaari lahaa oo ay ka mid tahay amniga xoreynta gobolada iyo sharciga doorashooyinka oo aan weli diyaar ahayn ayaa fashil doorashadaas ay ku dhacaysaa geesta kale iyadoo ay taasi jirtana Muuse Biixi Cabdi ayaa si kulul waxa uga hadlay xayiraadii uu madaxweyne Farmaajo saaray Xasan Sheekh iyo Shariif madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta markii ugu horeysay waxa uu ka hadlay tallaabooyinkii ka dhanka ah madaxweynayaashii hore dalka ee muddooyinkii u dambeeyay ee qaadaysay dawladda federaalka ee Soomaaliya Muuse Biixi ayaa sheegay in Farmaajo oo aan xukumin filo Soomaaliya uu rabo inuu xayiraado saaro socdaalada madaxweynayaashii hore ee dalka Soomaaliya Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh Biixi ayaa tallaabooyinkaas ay dawladda Farmaajo ay ku xanibayso garoonka diyaaradaha madaxweynayaashii hore ee dalka ku micneeyo kuwa aan xitaa dhaqan siyaasadeed iyo Soomaaliyeed baan shaqo ku lahayn madaxweyne Biixi ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay weeraro ay dawladda Farmaajo ay ku qaaday Soomaaliland markii xilkii la wareegtay ilaa iyo hadda kuwaas oo uu sheegay inay ku curyaamisay horumarkii kobaca dhaqaale ee Soomaaliland madaxweynaha ayaa ugu dambeyntii wuxuu Farmaajo ku eedeeyay inuu dhaqaalaha caalamka ku taageero dawladda Soomaaliya u adeegsado burburinta maamulada dalka ka jira gaar ahaan kuwa ka soo horjeeda maanta Kismaayo dagaal baa ka socda xamar dagaal baa ka socda dawladda Farmaajo labadii madaxweyne ee kooreysay maalin walba way xirtaa waxaad arkaysaa halka la marayo iyo qaraxa ka taagan ay yiri madaxweyne Muuse Biixi waxa uu intaas ku daray Puntland maanta wad arkaysaa dhibkaas oo dhan waxa wada dawladda Farmaajo laakiin way ku jirtaa tawar waxa ay ku wajahan tahay Soomaaliland hadda qorshahaas uu Farmaajo ka fulinayo Soomaaliya ayuu yiri
madaxweyne farmaajo maalmihii u dambeeyay ku sugnaa caasimada dalka Kenya waxa uu kulan la qaatay xeeraliyaha dalka Qatar walow madaxweynuhu shalay uu Muqdisho soo gaaray. madaxweyne farmaajo ayaa maalmihii ku sugnaa Nairobi caasimada dalka Kenya halkaas oo uu kaga qayb galay shir ay UN ka soo agaasimeen wax uu la kulmay xeeraliyaha guud ee Qatar. Dr. Ali bin Fitas Al-Miri ayaa dhankiisa wuxuu booqasho ku joogaa magaalada madaxda dalka dhaca geeska qaaradda Afrika. shirweynaha oo 3 maalin socda ayaa waxaa diiradda lagu saaray sidii horumarinta dadkii dhalinyarada loogu dari lahaa ajendayaasha caalamka. is-aragga Farmaajo iyo Al-Miri ayaa waxaa goobjoog ka ah safiirka xukuumadda Dooxa u fadhiya waddanka Kenya. Danjire Jabir bin Ali Al-Dosari ayaa laga soo xigtay qaar ka mid ah qodobada isla meel dhigeen labada dhinac. Farmaajo oo Muqdisho dib ugu soo laabtay iyo Al-Miri ayaa isla gartay in labada dal iska kaashadaan xoojinta shuruucda iyo dagaalka ka dhanka musuqmaasuqa. inkastoo dalabku aadan inay faahfaahin ka bixiso loo diray madaxtooyada Soomaaliya ayaana soo bandhigin kulanku madaxweyne Farmaajo la qaatay xeeraliyaha guud ee Qatar ayaa ka mid ah dowladaha aadka ugu dhow maamulka Farmaajo isla markaana ka taageera dhanka maaliyadda iyo dhismaha ciidamada iyadoo dhawaan ku wareejisay sanad ciidan iyo gaadiid dagaal. wararkii ugu dambeeyay ee Boosaaso ka taagneed haddaynu fiirinayo xal laga gaaray halkaasna ismada dhaqanka gobolka Bari ayaa xal ka gaaray xiisadii ka taagneed magaalada Boosaaso ee u dhaxeysay madaxda shirkadda PDG iyo xukuumadda madaxweyne Dani. kulamadan oo saacadii ugu dambeeyay ismada gobolka Bari ay la yeesheen mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda, madaxda shirkadda PDG saraakiisha hogaaminayay ciidamadii Carmo ka yimid ayaa ugu dambeyn isfaan laga gaaray xiisadii ka taagneed Boosaaso maalmihii la soo dhaafay. arrinta ugu weyneed ee la isku afgarta ayaa in ciidamadii ka soo ruqaansaday Carmo ay dib ugu laabteen, sidoo kalena ay wada hadal lagu dhameeyay khilaafkii sababay madaxda shirkadda iyo xukuumadda inay isqabtaan kadib ciidamo abaabulan qaab beelood oo gudaha u soo galay magaaladaas ganacsiga ee Puntland. maalinta beri ayaa lagu wadaa in ciidamo maalmo ka hor gudaha u galay magaalada Boosaaso dib ugu laabtaan deegaanka Carmo ee isla gobolka Bari. ciidamadaas oo isugu jira kuwa ka socda daraawiishta Puntland iyo maleeshiya beeleed waxaa Boosaaso ay ka raaci doonaan ismada dhaqanka gobolka Bari iyo mas'uuliyiin kale si ay isugu dhicin ciidamada ku sugan inta u dhaxaysa Boosaaso iyo Carmo, iyadoo la sheegay in wixii markaas ka dambeeya loo fadhiisan doono xalka kama dambaysta ee arrintan. dowladda Soomaaliyana waxay markii ugu horeysay ka hadashay qaraarka xubnaha UN-ka ay ku kordhiyeen xayiraadda hubka. qaramada midoobay ayaa toddobaadkan waxay muddo kordhin u sameysay xayiraadda dhanka hubka ka ganacsiga dhuxusha ee saaran Soomaaliya oo ah waddan leh xeebta ugu dheer qaaradda Afrika. dowladda Ingiriiska ayaa soo diyaarisay qaraarka kaasoo cod u qaaday golaha ammaanka ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa. Ruushka, China iyo Equatorial Guinea ayaa ka aamusay qaraarka waxaana u codeeyay dalalka kale ee golaha oo wadar ahaan ah 15. qaraarka ayaa cambaareynaya qatar ay kooxdu ay ku tahay ammaanka xasiloonidii nabadgelyada gobolka iyadoo adeegsanaya qaraxyada oo Al-Shabaab. muddo kordhintan ayaa ku soo aadaysa maalmo kadib markii guddiga khubarada Soomaaliya iyo UN-ka ay shaaciyeen in ururka ay sameysteen qaraxyada. dhinaca kale dowladda federaalka oo ka hadashay cusboonaysiinta cunaqabateynta ayaa waxay sheegtay inay ka qoomameynayso inaan la tixgelin walaaca iyo wada ogolaanshiyaha qaraarka. Abuukar Daar Cusmaan, ergeyga Soomaaliya ee qaramada midoobay oo ku nuuxsaday in dowladda ka codsaday in golaha laga qaado xayiraadda ayaa waxa uu ku sifeeyay xubnaha kuwa gaboobay iyo kuwa daciif ah. Master Cusmaan ayaa tilmaamay in golaha uu ku guuldareystay inuu xisaabta ku darsado rajada Soomaaliya xaqiiqda nool, waxaana uu sheegay in siyaasadda xukuumaddiisa ay tahay dib u dhigista iyo qalabaynta askarta. Danjire ayaa waxa uu ku dhaleeceeyay dalalka xubnaha ka golaha inaysan bixin astaamaha keeni kara in la qaado cunaqabateynta. muddo kordhintan cusub oo xayiraad dhanka hubka ee saaran Soomaaliya oo ah dal halgan ugu jira kasoo kabashada burburkii ku dhacay in ka badan 30 sano ka hor ayaa ku eg 15 bisha November ee sanada soo aadan ee 2020. haddaba iyadoo ay taasi jirtana Ruushka waxa uu sababay sababaha ugu aamusay arrintaas. dowladda Ruushka sharaxaad dheeri ah ay ka bixisay sababta ay ugu gaabsatay qaraar rildi ku ah Soomaaliya. qaraarkan oo ay soo diyaarisay boqortooyada Ingiriiska iyadoo oo taageero badan helay. qaraarka waxa uu ku cusboonaysiinayaa xayiraadda hubkii ka ganacsiga dhuxusha ee Soomaaliya. Dmitry Bolosayenko, ku-xigeenka ergeyga Ruushka ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ayaa waxa uu cogsaday arrin loo qaatayna arrintaas. qaraarkan wuxuu culays weyn saarayaa qaababka loo maareeyo mowduucyada la xiriira arrimaha bini'aadanimada ayuu sheegay golaha. Ruushka ayaa taageero weyn waxa uu muujiyay cunaqabateyntii hubka ee laga qaaday Eritrea oo liiska kula jirtay Soomaaliya.
abuukar baale danjiraha Soomaaliya waxa uu tilmaamayaa inay tahay arrin gabowday balse markan xukuumadda Moscow iyo Beijing oo xulufo dhawaa waxay leeyihiin madaxweyne Farmaajo oo muddaxileedku kaga harsan yahay sanadii bilooyin oo taageero ay muujinayaan. dowladda Soomaaliyana deegaan cusub ayay kala wareegtay ahlu sunna. taliyaha qaybta 21 ee ciidanka xoogga dalka Cabdilcasiis Cabdullaahi Khooje oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ciidamada militariga dowladda ay la wareegeen ammaanka deegaanka Godoon ee hoos yimaada magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug. taliya Khooje ayaa sheegay in dhawaan deegaankaas la geyn doono ciidamo boolis oo ka howlgala halkaas kana shaqeeya nabadgelyada. sidoo kale waxa uu tilmaamay in dowladda Soomaaliya ay mas'uuliyad gaar ah iska saari doonto ammaanka gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. ugu dambeyn taliyaha qaybta 21 ee ciidanka xoogga dalka ayaa shaaciyay inay laba jibaari doonaan howlgallada ka dhanka Al-Shabaab oo ay ka wadaan deegaanada maamulka Galmudug si loogu saaro guud ahaan gobolka Galgaduud iyo Mudug. Godoon ayaa noqonaya deegaankii ugu dambeeyay ee lagala wareegay Ahlu Sunna wal Jameeca oo haatan si weyn ay isku hayaan dowladda dhexe ee Soomaaliya. xiisada u dhaxaysa dowladda Ahlu Sunna oo ka dhalatay maamul sameynta Galmudug ayaa sii xoogeysanaysa mana jiro isku soo dhawaanshiyo labada dhinac ah. ugu dambeyntiina madaxweyne cisbitaal loola cararay kadib xanuun la soo darsay. madaxweynaha Serbia Aleksandrovic ayaa loola cararay cisbitaal markii ay soo wajahday mushkilad dhanka wadnaha sida Sabtida maanta laga soo xigtay xafiiskiisa. mas-uul ka tirsan xukuumadda oo magaciisa u qariyay Sawir ayaa wakaalada wararka Reuters u sheegay madaxweynaha xaaladiisa haatan waa ay xasiloon tahay. Vučić oo 49 sano jir ayaa waxaa Jimcadii la geeyay cisbitaal uu leeyahay militariga oo ku yaala magaalada Belgrade. xilka madaxweynaha ayaa loo doortay sanadkii 2017 ka hor waxa 2014 uu noqday ra'iisul wasaare. xisbiga lagu magacaabo Serbian Progressive Party oo haatan talada haya waxa uu yahay hogaamiye tan iyo sanadii 2012 ololaha ugu badan intuu socday doorashada loolan adag oo kala kulmay xubnaha mucaaradka ayaa waxa uu ku galay inuu furfurayo ganacsiga maxalliga iyo xoojinta maalgelinta. daawadayaal warkaad xubinta wararka kala socoteen waa naga intaas.